بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal waxaan rabaa inaan haddana idinla wadaago bal arrintan aad wararka uga maqlayseen maalmahan u dambeysay weliba lagu magacaabayo religious freedom bill ama sharciga xorriyadda diinta mararka qaarkood waxaa laga yaabaa magaca inuu dadka ku rido wareer ama ay maaragtay uu ola muuqdo si kale sida hadalka dhahayo oo kale buugga laguma xukumo coverkiisa ama maaragtay jildigiisa laakiin se waxa gudihiisa ku jira don't judge a book by its cover oo kale marka dad baa waxay u arkayaan xorriyadda dadka diinta leh inay tahay oo kale macnaha oo ay dad u doodayaan maxaa marka uu yahay su'aalaha aan isku dayno inaan ka jawaabo programkan waxay noqonaysaa maxay isku khilaafsan yihiin siyaasiyiintu maxaynan isku khilaafsanayn siyaasiyiintu iyo xageebu ka yimid doodan iyadu asalkeedii xageebu ahaa hal baynan isku khilaafsanayn la iskuma khilaafsano dhinac baana loo dhigay wayna dhammaatay waa midda aha dadka aanu inagu nidhaahno khaniisiinta ama nin xidhir la samaynaya ama haween xidhir la samaynaya taa iyadu waa la fasaxay sharcigeedii baa la gudbiyey waana la soo dhaafay Australiana kama oho sharci darra arrintaa kama oho markaad maqashaan dooda dhacaya yaynan idin ha u malaynina in lagu doodayo meesha qola ay leedahay aan bahalkan aan waxaasi ka dhigno wax bannaan qola kalena ay leedahay yaan laga dhigin taasi waa la soo dooday aqlabiyadii shacabku markii 60% iyo ka badan ay arrinta iyada meel mariyeen ayuu baarlamaanka sharciga Australia uu sharciyay waxaan u malaynayaa inay ahayd 2018kii meelahaas ka tinayda u malaynayaa maxaa marka ka dambeeyay oo arrinta meesha hadda doodan sababta u ah markii sharciga uu hirgalay oo la isku wada waafaqay sharcina ay noqotay in dadkaasi isguursiga waxa lagu magacaabay ay inay calaaqaad sameyn karaan ay sharci tahay ay sida dadka kale ee nin iyo naag ay guur u samaysan karaan oo kale ayagana sharciga markii loo fiiriyo u samaysan karaan markii la isku waafaqay ayaa waxa ka soo baxday su'aalo kale oo garab socda su'aalahaas oo ah sida dadka ayadana sharciga Australia wuxuu leeyahay dadka diintooda inaan si toos ah loogu xadgudbin khaasatan haduusan dadka kale dhibaato uusan u keeninin sharciga guud ee Australia uusan ka hor imaaninin maxay tahay in aan lagu qasbin hada shakhsi tahay wax diinkaaga xagga mabda'a markii laga hadlayo wax u dhimahaya amaba kugu qasbahaya inaad wax diinkaaga ka soo horjeeda samayso ka soo qaado kale ruux muslim ah in aan lagu qasbin in uu ka soo qaad khamri cabo kale inuu macnaha khamri lacabo inuu khamri la macaamilo iyo wixii la mid ah baan taa hadda ka soo qaato kale marka ayadoo halka laga duulayo ayaa waxa la yiri in meelaha diinta aha sida kaniisad oo kale ama maaragtay hay'ado diinta ku salaysan in aan lagu ama ruux ka soo qaado khabiir ah dhakhtar oo kale in wax diinkiisa toos uga hor imaanaysa ama dareenkiisa waliba asaga waxa uu dareemayo toos uga hor imaanaysa in sharcigan asaga ah aan lagu qasbin oo hadii misaal oo kale ka soo qaad ruux khaniisa ba u yimid nin ruux maaragtay wax xirfad sameynaya oo yiri marka waxaas oo khaniisnimadiisa iyo waxa ku saabsan buu yiri iga caawiyo ila sameeyo oo maaragtay iga caawi ama adeeg igu sii ruuxa marka wuxuu dareemay inay arrintaasi diinkiisa ay toos uga hor imaanayso oo uu dareemayo diinkiisa uu jabinayo oo meel kaga dhacayo saadarateed asagoo ruuxa caayin oo cadaabin oo dhihin waxaad sameynayso waa khaldan yahay ama waa lagu cadaabi ama waa lagu waxin asagoo wax xukuma sameynin in uu si degan uu dhaho iga raali ahaw arrintan diin iyo aaminadan aaminsan ee darteed ayaanan u sameyn karin waxaan sameynhayaa meel kale ayaan kugu wareejinayaa arrintaas oo kaleete ayaa laga wada hadlay oo marka loo ogolaaday arrintii waxay iyadana sii socotay waxa kale iyadana ay gaadhay in hay'adaha diinka ah sida iskuulada diinta ku salaysan oo kaleete ayagana ma shaqaaleyn karaan ruux khaniisnimadiisu ay caddahay ma shaqaaleyn karaan maadaama uu diinkooda arrinta ka soo horjeedo waxyaalaha waxay ka mid tahay ruqsada loo siiyay iyadana haddii aynan toos ruuxa ugu wahaynin oosan ruuxu toos u dhahaynin khaniisnimadiisa uusan sheeganaynin uusan cadaynaynin uusan maartay uusan faafinaynin in macnaha aynan diidi karin oo aynan ruuxa dhihi karin khaniisnimaan ama kugu tumaynaa ama inaad khaniistaan u malaynaynaa shaqada uma diidi karaan shaqadana kagama eri karaan laakiinse in wax diinkooda waxa loo ogolaaday
wixii diinkooda calaaqaad la leh oo diinkooda ku qayb la leh sida ka soo qaadoo kaleetaba ruux diin kala faafinayoo kale aan loogu qasbi karin ruux dad diin faafsan ama diin aaminsan inay shaqaalaystaan oo markaa dadna ruuxa diinta kale meesha ka dhex faafiyo oo kale in iyadana loo ogolaado inuusan maaragtay ay dhahaan magta ruuxa ayna shaqaalaysanin haddaba marka arrimaha horta iyay doodu ka taagan tahay mana oho in la leeyahay khaniisnimadu ma wax fiican ba ma wax xun ba khaniisnimadu ma xaaraan ba macnaha ma sharciga aan waafaqsanayn ma in laga dhigaa mise waa in laga dhiglo isku waafaqsan taas waa laga soo gudbay way soo dhamaatay sheekadeedii dhinac bayna u dhacday haddaba arrintan hadda taagan ee hadalkana doodana maxay tahay markii doorashadii ay dhacday 2019 ay dhacday wax yar ka horna aad ogtihiin inay ahayd aftidii laga qaaday shacabka ee ahayd inay maaragtay la fasaxo inay dadka isku jinsiga ay isguursadaan oo kale sida dadka kale nin iyo naagaba isu guursanayaan oo kale oo sharciga arrintii asagana baarlamaankii la mariyay maadaama aftidii shacabka ay 60% ka badan ay martay baarlamaanka intiisa badan dadka baarlamaanka ku jira intooda badan ay arrinta ayada intooda badan ay taageerayeen ayaa marka ra'iisul wasaaraha oo lagu sheego inuu yahay nin firqad waliba diinta masiixiga ah oo dhinac aad u sii xag jirta oo dadka diinta masiixiga aad ugu adag ah ka tirsan ayaa wuxuu ballan qaaday in uu sharcigii wax ka bedelahayo oo jilcinhaya khaasatan dadka masiixiga ah ama iskuullada masiixiga ah in macnaha aan lagu qasbin waxyaalaha qaarkood oo kale maxaa ka mid ahayd مثال هان واحد مقليس هذا بريان سكول كأد لو شيء هي عيالك ترانسجندر بعد مقليس أنا وكله ما هاي تاي مركب أرنت وحاي تاي رئيس الوزراء هي يقول بالله قاضي إن وشرعي صهر لقى هي برلمانك خاصة بيمر كدو دور شذ كجوليستو ودور شذي هو هذا أنصار لابن إنتين الدعم ويه هذا أنكو جوليستو صدق السنة يسوع عطو وحن أن شرع أن كرلقى هي بشرعين هي سكول لذا خاصة مسيحي جاها بيولي إن ay dhihi karaan ay diidi karaan ilmo dhahahaya waxaan ahay labadiiba labna waanay dhadigna waanay transgender wax la waa taas weey oo wuxuu arrin maartay toosna ma aho khaniisnimo toosana ma aho waa arrin maartay yar aad u adag oo si loo qaado waliba markaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay erayo la soo gaagaabiyo la isticmaalayo iyadoo macnaha aynan ahayn ruuxani waxa uu sheeganayo wax iska cad oo sida inagu hadda inala too kale inayna ahayn isku soo duubo arrintan wuxuu yiri wuxuu u ballan qaaday in iskuullada khaasatan kuwa masiixiga ah inaan sharci uu ka dhigo sharci inayna sharci ahayn haddii ay dhahaan qoys hadduu oola yimaado ilmahoodii oo ay dhahaan iskuulkan aan rabaa inuu dhigto ilmahuna uu yahay ilmo dhahahaya anigu labna waan ahay dhadigna waan ahay transgender baan ahay saa daraadeed inuu kasagoo u dhashay wiil ah oo sidii caadiyan markii soo asalkiisa u dhashay wiil ahayd inuu iska dhigay kara gabadh sida gabdhahan u labisan karo sidoo kale soo gabadh u dhashay oo gabadh ah lagu ogaa inuu isbedeli karo oo uu labisan karo sida wiil ama kolba sidoo rabo iska dhigi karo transgender labadiiba inuu yahay oo kale in marka iskuulka maadaama ay arrintaasi ka soo horjeedo mabda'ooda haddii ay ilmaha diidaan oo dhahaan ma rabno inaad iskuulka naga dhigato si aadan ciyaalka kale iyo raadin ugu sameeynin in ayna sharciga jabinaynin oo arrinta iyada loo fasaxo ra'iisul wasaaraha marka arrintii soo isagoo ballan qaaday 2 sano 3 sano gudahood doorashadii hadda la soo dhaafay hadduu ku guuleysto inuu arrinta iyada hirgelinayo oo ma uusan dhaqaaqin sababtu waxay doontaa noqotee waxa u baahan tahay inuu ogaa inaan laga yeelaynin oo baarlamaanka intiisa badan xataa ururkiisa xataa naftiisa ka soo horjeedo aakhirkii waxa loo arkaa markii hadda xagga shacbiyadiisu ay yar hooseyso oo arrimo badan oo asaga been sheegay iyo ra'iisul wasaarihii ninkii mar asaga uu la shaqeyn jiray ra'iisul wasaarihii hore Tombal uu yiri ninkan in run sheego ma aho qoraal uu soo qoray ninka ku-xigeenkiisa oo ah Banama Joyce uu leeyahay asagana ay ruux kale isdhaafsanayaan oo isleeyahay ninkan in run sheego ma aho waa nin khaa'in oo la isku haleyn karin barnaamijii hore New South Wales iscasishay oo iyadana nin wasiir ah oo hadda xataa dawladda ka tirsan ay isdhaafsanayaan fariimo asagana sidoo kale dhahaya waxyaalo badan noocaas ah madaxweynihii maarta Faransiiska oo asagana saas oo kale arrintii ku saabnaysa Mareykanka iyo yiri intii la yiri ma been buu ku sheegay ra'iisul wasaaruhu yiri miyaad u malaynaysaa baa la yiri inuu been ku sheegay oo uu yiri ma u malaynhaye waan ogahay inuu been ii sheegay waxyaalo badan oo asaga ku waajahan
ayaa ku soo jeesatay ra'iisul wasaaraha marka doorashada waqtigeedana waa soo dhawaaday markaas ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhaqaaqay in uu bal sameeyo arrin uu og yahay in ay maaragtay laybarka mucaaradku ay iyaga dhexdooda khilaaf laga yaabo inuu ka dhex yimaado khaasatan ay laga yaabo inay u keento dhibaato xaggooda dadka multiculturalka dadka qowmiyadaha multiculturalka ah ethniga waxa loo kala luqadaha kale inagu ka tirsanahay ayaa guud ahaan waxa la ogyahay guud ahaan marka la isku duubo inay diinta wali ku yara dhagan yihiin waa koow laba waxa laga doodahayo iyo meesha lagu kala qaybsan yahayna inayna si cad aynan u fahmin waana arrin xaqiiqo jirta maantana dad hadda Soomaaliya oo la hadlayay ayaa waxaan arkayaa inay u arkaan in uu macnaha meesha la isku hayo in dadka khaniisnimada la fasaxay iyo in la fasaxin oo kale in macnaha ciyaalka iskuulada ay dhigtaan iyo inay dhiganin ciyaalka arrimo maartay waaweyn oo meesha ku jirin oo waqti hore la soo dhaafay oo inaha yaraatay wax soconin oo khaasatan iskuulada dawladda aan ka jirin iskuulada dawladda completely kama jiran waxa arintu ay saaran tahay laga hadlayo waxa weeye un iskuulada private ka ah ee khaasatan kuwa masiixiga ah inay dhihi karaan ilmahan hadduu yahay dadka jinsiga kale iska dhigahaya aha mana dhigan hayo oo markaana sharcigana ayna jabinaynin oo cunsurnimo lagu qaadanin arrinta maadaama ay tahay oo marka u arko inay dadka qowmiyadaha multiculturalka ama ethniga ah ay maaragtay arrintaasi tashwiish ku furayso ayaa wuxuu damcay ra'iisul wasaaruhu inuu arrintii iyada ahayd uu marka hadda uu ka dhigo doorashadii ay ka dhiman tahay bilo wax ka yar inuu soo hordhigo baarlamaanka arrintii marka runtii waxay ku noqotay waxa la dhaho way la gadoontay sirtii meeshii uu rabay inuu laybarku iyo dadka ethniga aha uu khilaaf dhaxmaro ama laybarka dhexdooda khilaaf dhaxmaro arrintii way la gadoontay ururkiisii dhexdiisii ayaa isku khilaafay haddii mitaal ku soo qaado markii uu arrinta iyada baarlamaanka la soo hordhigay ayaa ayagoo arka khidada uu ciyaarayo ra'iisul wasaaruhu ayay mucaaradku arrintii way soo dhaweeyeen waxay dhaheen waan fulinaynaa waxba kama qabno laakiinse waxaan rabnaa inaan ku darno ayadana in dadka diimaha kale ee maaragtay muslimku ka mid yahay inaan ayagana cunsurnimo lagu samaynin sida xijaabka oo kale ninka hadda u xil saaran baarlamaanka Tony Bog la dhaho ee u xil saaran mucaaradka baarlamaanka u maamulo oo kale ayaa hadalkiisa waxa ka mid ahaa arrintan waxaan rabaa buu yiri maba diidaninba haday dawladdu ay arrintaas samaynayso oo loo ogolaanayo dadka iskuulada maartay kuwa khaasan kuwa diinta ah inay ilma dhahaan ilmaha transgender ah inuusan enroll garan hadii loo leeyahay waxbaba kama qabnaba haday dawladdu saawadno laakiin waxaan rabnaa bi shardi in ayadana lagu daro in aan dadka labiskooda diinta ah waliba inaan ayadana lagu cunsuriyeyn karin markaasuu misaal u soo qaato hadalkiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi hadda aniga biiri meesha la iga soo doorto oo Sydney ku taala dad badan oo waxa degan biiri Lebanese ayaa degan haddii ruux biiri lagu cunsuriyeeyo ama shaqo loogu diido ama bal lagu caayo ama wax lagu dhaho inuu Lebanese yahay ruuxa saa ku dhahayo sharciga ayuu jabinayaa oo cunsurnimo ayaa lagu qaadi karaa laakiin saa wuxuu yiri haweeney muslim oo xijaab qabta haddii xijaabkeeda lagu weeraro ama xijaabkeeda lagu cunsuriyeeyo ruuxa sharciga wuxuu yiri ma uu jabinayo oo hadda sida uu sharcigu u taagan yahay oo u jiro ma uu jabinayo marka waxaan rabaa buu yiri arrintaasi in lagu daro oo saa loo hirgeliyo si kastaba ha noqotee ururkii dhexdiisa ayaa isku khilaafay markii amendmentiga waxa la dhaho oo macnaheedu sharciga in wax laga bedelo oo wax lagu daro sida taas oo kaleete waxa arrintaas soo dhaweeyay oo la saftay mucaaradka 5 kamid ahaa ra'iisul wasaaraha ururkiisa 5 kamid ah ayaa la safatay taa marka waxay sababtay waana meesha ugu hadda kaliya guriga la dhaho House of Representative-ka ee ra'iisul wasaaruhu iyo ururkiisu ay aqlabiyada ku haystaan ee dawladdu ka dhisan tahay weeye midda isa ka dhacday ka waran marka midka kale ee guriga sare ee ama sanadka la dhaho ama guriga duqeydana oo dawladdu ay aqlabiyada ay ku haysaninba markaasi inii waxa laga yaabaa inii xataa wixii uu rabay xataa naftigiisa intii uu watay xataa naftigeeda ay ahayd in iskuulada diiniga ah loo ogolaado in ciyaalka ay rabin inay diidaan inayba xataa inta meeshaba laga saaro asagoo nooc kala ah oo ka bedelan ba xataa wixii uu ku ogaa dib loogu soo celiyo guriga hoose ee uu ra'iisul wasaaruhu joogo markaadeena saana lagu hirgeliyo maadaama 5 ururkiisa kamid ah ay haddaba dhinaca kale la safteen inay marka hadhowran la saftaan marka ururkiisa uu sharcigii uu marka ku hirgalo asagoo aad looga bedelay doon ahaynba xataa sidoo asagoo ku ogaa saadaradeed ayuu sharcigii yaba la istaajiyay doodiisa waa la istaajiyay
ما halka waa laga saaray hadda dawladda maadaama iyadu gacanta ay ku hayso wixii la soo hordhigayo maartay baarlamaanka way dhicay waxayna tiri iyadoo ku gabanaysa inay macnaha ay inquiry wax dhaho ama maartay baaritaan la sameeyo marka arinta marka maqlaysan religious freedom bill ka leeyahay halka ayuu ku salaysan yahay waa in dadku ay la socdaan ay ogaadaan ay fahmaan doodan un dhaxda intayna kaga dhicin ayna dhihin ruuxan waxaas uu ka doodaya uu necab yahay waxaasna anagu waxaan necabnahay weeye haddaba marka kan ayaa inaga inoo doodahay arrimaha marar qaarkood aad ka muhiim ku ah ee inaan qalbiga ku hayno laga maarmaanka waxay tahay in wadankan aanu joogno aqaliyan ku nahay dadka dawladda ee siyaasadda marka ku jira laba u qaybsamaan qayb waa qaybta dhinaca midigta jirta dhaho qaybna waa qaybta jirta dhinaca bidixda qaybta midigta jirta guud ahaan dhammaantood ma wada aho hal meel la kuma wada jirin laakiin guud ahaan iyagu waxay rabaan markastaba wixii hore ee Australia ay soo ahaan jirtay in la qadariyo la hayo la raaco dadka kale dibadda ka imaanayana la dhaho dhaqankaas ha bedelina la qabsada in la dhaho oo macnaha waxa la dhaho aad maqlaysa ereyada la isticmaalo waxa kamid ah conservative ama waxay u dhigantaa oo kale waxa la dhaho asal raac dadka kale dhinaca bidixda ahana intooda badan guud ahaan ayaguna siyaasadoodu iyo waxa ay sheegaan xataa laga yaabo inay saa u aaminsanayn aysa ku salaysan tahay siyaasadoodu waxay tahay iyadana in la dhaho sharci baa dalka inoo yaala sharcigaas oo hadana baarlamaanku uu bedeli karo kolba siduu uu sharcigu yahay hadduu mar ruuxu u hogaansanayo inuu dhaqan raaco inuu diin raaco iyo inuu wax uu isu bedelo inna haba yaraatee inaan ruuxa la weydiin karin ruux walba dhaqankiisa iyo diintiisa iyo wax alla wuxuu wadanayo siduu u labisanayo iyo siduu wax cunayo asaga u taala sharciga mar haduusan u hogaansanayo oo marka ay tahay innaga haddaanu nahay muslim dad aqaliyo laga badan yahay aanu nahay in aanu laynagu faragelinin bal sharcigu ina ilaaliyo haddii ruux siduu u labisto ama waxa uu leeyahay waan caabudahayaa ama waxa uu sameeynayo waqtigiisa caadiga asagoo ah inaan lagu faragelin karin marka dadku waxay u baahan yihiin inaanu si dhaba u fahanno farqiga u dhaxeeya mararka qaarkood dooda socota oonan dhaxda intaada kaga dhicin uun aadan dhihin midkani diin buu u doodahayaa marka aniguna diin baan aaminsanahay haddaba asagaa ii roon kan kaleetana diin buu ma aaminsano wuxuu leeyahay diin baa naga saaro oo nin walbaba wuxuu rabo ha wato oo ha aamino oo ha caabudo yaan maaragtay ruuxna wax lagu jajuubin maxay dhahaan maamaa waxaa jirta ahaa ka fikir waxa aad rajayso ka fikir waxa aad rajayso ama sidii maartay la dhihi jiray oo kale iyada la dhihi jiray islaam baa waxa la yiri wiilkeedii uu hadli waayay markaas ay dhihi jirtay markaas ilaahu iga hadalsi maba ayna dhihin baa weligeed ilaahu iga hadalsi oo wax wanaagsan muu ku hadlo markii uu horeysay oo hadlayna waxaan loo joogin ayuu ka dhaqaaqay baa la yiri marka inaanu fahanno waa arrin muhiim ah diinka la leeyahay la soo dhaweynaya teenu ma ku jirtaa dhaqanka la soo dhaweynhayo keenu ma ku jira inuu yahay marka labada lagu isbarbar dhigo mid dhaqankaagi dhaqan aan ahayn iyo diinkaaga diin aan ahayn ka dhigahaya midda caadiga ah ee saxda ah ee u baahan in la xoog la saaro meel kasta lagu dabaqo haduusan xataa afka toos ugu dhufanin ay aakhirka halka aan ku soo ururayso iyo midka dhahaya war shakhsi kasta wax alla wuxuu caabudahayo iyo waxa uu wadanhayo iyo waxa uu cunahayo iyo waxa uu xiranhayo asagay u taallaa waa arrin shakhsiga faraha ka qaada waxaan u malaynayaa inay iska caddahay waana waxa dalkan aan u nimid aan ku joogno weeye markaan imaanayni inaan diin kale leenugu qasbaynin inaan diinkeena leenaga riixaynin inaan dhaqan kale leenugu qasbaynin inaan dhaqankeena leenaga riixaynin ayay ahayd waxaan u nimid marka inaanu kala ogaano labada xaaladood oo isaa inuu kala cadaan waa arrin muhiim weeye oodan aadan iska raacin waxa dhoo baan waagan ko kale meel bay dad soo ordahayaan diinkay u taagan yihiin diintay taageerayaan oo adigina adoo dhihin diintaadi ma ku jirtaa taadu ma ku jirtaa dhaqankaaga ma ku jira dhaqanka la ilaalinhayo ee la leeyahay dhaqankaas hal raaco dhaqanka yaan laga tagin dhaqanka maartay la leeyahay ma dhaqankaagu ma ku jiraa iyo diinkaagu ma ku jiraa adigase dib hadoo ma kugu soo noqon kartaa in arrinta aan ogaano oo la socono waa arrin aad muhiim ah weeye intaas ayaan ku soo koobayaa sida iyo mac salaamo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh